daawayaal kusoo dhawaada barnaamij xiise leh oo laga diyaariyey maxad cusub oo laga dhagax dhigayay magaalada qadiimiga maydh ee ku taala gobolka sanaag. maxadkan cusub oo aada iyo aada loo soo dhaweeyey oo dadweynaha magaalada maydh kasoo qeyb galeen. marka daawayaal nala daawada barnaamijkan xiisaha leh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان dadkiina sharafta leh ee ka soo qayb galay dhagax dhiga maxadka laga bilaabay degmada Maydh iyo kala wareejinta mulkiyada dadkiina siiyay dhulka iyo mas'uuliyiinteeda. waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay halka baynu lahay ka abaal mariyo inta ka soo qayb gashay halka baynu lahay ka abaal mariyo taasoo 1,000 kiiloomitir ayaan u soo soconay si aan halka uga hirgelino maxad islaamiga ay dadkeena iyo carruurteena ay ku bartaan. haddana waxaan u gudbinayaa inay xubnaha kale halka taagan inay badada ka yiraahdaan kiisaca toosan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. maanta waxa weeyaan isniin bishu waa 22 waxaan joognaa halkii maxadka laga dhisayay laga dhagax dhigayay. waxa ilaahay mahadiya maanta anagoo joogna Maydh waxa halkan la jooga guddigii magaalada iyo madaxdii magaalada oo dhan iyo shicibkii magaalada joogay. maanta aanu dhagax dhiganay maxadka islaamiga ah. waxa la galay wax ku darsaday ee u duceeyay dhammaantoodba miisaanka xasanaadka ilaahay ka siiyo. imika wax ku wareejinay odayaashii kale magaalada joogay ee guddiga waxaanu kaloo halka uga ducaynaynaa nimanka qurba jooga ee halkaa intaasoo kiiloomitir u soo socday ee maalinka maanta doonaya dalkooda inay wax ka qabtaan. idina waxaanu in maxad laga dhiso inuu markuu sekatari joogo baa la odhan jiray haddii alla kuriyo ergaaba ha loo diro. dadku waa danyar, dad baan awooday malxaysataa maxay ku kaliftay ergaabana kharas uma hayaan inuu iska jilaabtaaba oo wixii soo baaba haddo iyo iskuulo iyo waxaas noo ka dhisay. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. haddeerna waxaanu leenahay miisaanka akhiro allah idinku buuxiyo annakuna waydala shaqaynaynaa dee alla kuu roon yahay wixii allah itaalka iyo waxba iskala hadhi mayno. nin ugu socdo waa seexan. intaasaan kaga baxaya anugu. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم. وعليكم السلام. حوالي معهد إسلامي بحبلوك وقدر تجاه إسماعيل وقدر مساك حسنات كلها وقدر يانا وحنود علينا نمانكا لا أنت صوك كلام تقول صعدي نفس العكس هذا الشيء شيء معهد كدس عن مايل يانا وقدر علينا جزاك الله خير بلنا هاي إن شاء الله وحلينا مركب معهد كه وبحنا مش مقال وبحنا إن بدن باني ليش علمي أنا الحين لكن ما أنت هدي لها قرتي وإنما كسر وصل لقي وحنا لا جزاك الله خير إلى هذا كدر ميزانك حسنات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. magaalada iyo qolada qurba joogga ah iyo qolada ciidamada aad iyo aad baan idin salaamayaa. maanta oo halka taariikhdu imisa ahayd maanta bisha 22 tahay bishii kale imisa ahayd bisha islaamigu ay 12 ayaan halkan waxaan ku wareejinayaa guddida magaalada degmada Maydh. guddideeda waxaan ku wareejinayaa warqadaas dhulkaasoo haddeer la cabiray oo ay naga dhaxaysay aniga iyo xaaskayga Kis Cabdi Axmed. waxaanu ku wareejinaynaa annagoo miyinkayga maalinkayaga qabna inaanu guddida ku wareejino si looga dhiso masaajidka iyo maxadka looga dhiso insha allahu. saasaan ugu wareejinayaa guddidan haddii alla yarxamo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay ciyaar Ismaaciil. waxa kale oo isna kamida aanu fiirinay علي وسنان شومتركي مقعد شومتركي ها واحد كان أي كيوضياش وكانن هرتوك ماتي وحن كوريتشني رجع أحمد إسماعيل للأود حيين أحد
والله إلهي بمحل الحمد لله رب العالمين هل كان يسوق كاني إنه إدمين إنه هل كان يكون لأنه دمانتين أنت أصلا كيلومتر أي أقول يسوع سعودين وحوي وحين وسوع سعودين دار إلهي صدقة الشارية أنا وحكم ذا دول بحصده ودار إلهي لو بحصده ومساجد يوم أحد متكستبه على قال السيادة وبرايو أما لو قلت كان يلا بحصد كل دول كبحيي يكوي محيا هيتوي مالك وذا كوزو بحيي أنت بو صدقة الشارية صدقة الشارية دون وحكم تهيا عماش أنقوين قفك إفي آخرة أنتو تشوجوا هدو آخرة ودنتنا وشغينيسا هدو إفكن تشوجنا وشغينيسا مركا الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذا على وافجيي كوا دول كودا بحيي iyo kuwa maxay haytay maalkooda ku bixiyada ilaahay baa waafajiyay oo mahadda iska leh alxamdulillah rabbil alamin mar walbana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa alxamdulillah walaayo waxa kale oo mahad leh dadka halkan isugu yimi ee sharafta leh kuwa yimi iyo kuwa meesha jooga oo ilaahay ku abuuray alxamdulillah aad bay u mahadsan yihiin mar walbana ilaahay baynu u mahad celinaynaa maxadka malcaameesh aad bay ugu baahnayd aad iyo aad bay ugu baahnayd waxa way waxaad arkaysaa dad meeshiina gaari waayay maxadada iyo lagu dhigan jiray waxbarashana aad ugu baahan marka dadkaasi aad bay ugu baahnaayeen ilaahay baa halka ugu keenay oo dadkaas soo waafajiyay iyaguna insha Allah waxay noqon doonaan kuwii ka faa'iideystaan waxaana magaalada Maydh ka dhisan dhowr ka mid ah kooxaha isboortiga waxaana xogta dhalinyarada ee dhanka ciyaaraha qaybta kale halka waxa mas'uuliyiintii qurbo joog ahaa ee halka ku wareejiyeen cagbiyo sports ay ka mid ahaayeen garamo iyo kubado ay ku wareejiyeen mas'uuliyiinta kubadaha ama sportiga ee magaalada Maydh
حليلي وملكين وينا يا حليلي ثم عليكم ودار ويا يجانتي كودك لو ما حمومي عمتي يا حليلي